Bismillaahi Raxmaani Raxiim waa Somali News oo idin soo gudbiyo xawle. Maanta waxaynu ka hadli doonaa ayaamahan aynu haynay ama casharada ugu dambeeyay aynu soo gaarnay miraha iyo khudaarta iyo waxtarkooda ay leeyihiin. Maanta waxaynu ka hadli doonaa miraha loo yaqaano ama khudaarta iyo miraha u wanaagsan beerka. Soomaalida cudurrada beerka aad iyo aad ayay ugu badan yihiin. Ugu horreyntii Allah waxaynu ka togan horta in Ilaahay uu inaga caafimaadiyo inta xanuunsan Ilaahay uu inoo caafimaadiyo insha Allah. Haddii aad ku cusubtay janaalka intaynu bilaabin warka subscribe dhubkasi insha Allah. Miraha iyo khudaarta u wanaagsan beerka number 1 waxaa loo geli canabka. Canabka waa shay aad iyo aad u muhiim ah haddii aad wadna xanuun haddii aad beer xanuun beer qabad beer laxaw bog xanuun intaba aad ka cabanayso canabka isticmaal inta aadan ama adiga oo gaajaysan wuxuu u wanaagsan yahay beerka. Sidoo kale liima balbeelmada Soomaalidu waxay yiraahdaan qof xanuuna beerka liima balbeelmo lama siiyo qofku ku sii xanuunsan beerku sii xanuuna. Marka waxa dhacayso inuu qofkii qabo cudurrada ku dhaco caloosha kaleento oo markaas la kaashado in liima balbeelmadii ay ku kiciso waxyaabaha qaar sida gaaska iyo kaleento oo beerkii markaas xanuunayeen oo xanuunku uu ka sii daro. Sidoo kale waxaan daawo u ah beerka wixii cagaaran oo dhan waxyaabaha cuntooyinka mise miraha iyo khudaarta sida cagaarka ah lagu cuno waxaa koow ka ah koostadii waxaa koow ka ah liima dhanaantii waxaa koow ka shaahi cagaarahay intaba iyo huruudka Soomaalida huruudka ma cunto. Sidoo kale waxaa qayb ka ah avocado waa mirayaasha ugu muhiimsan ayay ku jirtaa sida beerkii iyo wadnaha u wanaagsan. Sidoo kale jawska sidoo kale asagana wuu wanaagsan yahay beerka haddii qofka ka cabanayo beer xanuunka sidoo kale ayadana uu isticmaali karaa.